بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتي لشيك شيء جري حد وحا أي أبضانتا إني رنتهاي ها سوق عالم كه والغود حرفنا يا رجع كشقيسته سيده فلا أنت سأزول تايدونا تكارلسن أو مرخاتي حتى كان نقناية سيده خيانة أسعته إسبين أو هه يبسنيسا ديارته تركيا كان أيضا كتجيسة إسكان دينيسة ديارها أمريكان F-35 وان كهل دونا أيضا سيدا سوكرة وحن كهل دونا ترامب و كل حجرة أو ما أقبحه قرن لايه أردت أزول ساقينا إسرائيل وجرم الكهاء أردت أحفار أنت أخي وان كوعشت واحد من رون مياه معناها مسيسي وعجران المهم jarmalka ayaa waxay u bandhigayaan ama Israa'iil waxay rabtaa inay siiso jarmalka ay ka gargaarto ay caawiso shidaalka bal arintan aan taagna hada jarmalka la caawinaya waa dhaqaalaha koowaad ee Yurub Iran wasaaradda arrimaha dibadda akhbaartan degdeg ah ka soo baxday aan ka hadalnaa koow waxay leedahay Mareykanka nuquladii uu noo soo gudbiyay Pakistan ay noo soo gudbisay Pakistan waan helnay waxaan ku jirnaa falanqaynteeda wax go'aan ah haba yaraatay aan gaarnay ilaa hadirtan malahan sidaa darteeda dhigta taagnaato waan soo soconaa jidkan ku soo jirnaa diidina soo saarnaa kaliya falanqayaashu waxay ku tilmaamaan arinta inay tahay edeb dariiq qalad waxayna leeyihiin Iran spying time Iran waxay iibsanaysaa waqti Iran waqti rabtaa inay dhumiso Mareykanka wixii soo diyaar waxay leeyihiin waxaan rabnaa waxaas ma idin ogolna nacam Mareykanka wax uu rabo marka la fiiriyo waxyaalaha qaar kood waa mustaxiil oo macquul ma inay ogolaato laakiin arinta inay wali soo jiidanto maanta yani ama sabt waxa weeyaan ay sheegay khamiis xilli habeen ah waxa rajaynaa marka maanta oo khamiis ah in arinta ay dhamaato jimcina la isla gaarin oo sabti la isla gaarin laakiin hadda waxay u egtahay una badan tahay nacam bahasho way sii jiitami doonta la yaab marka la fiiriyo Israa'iil in ay hadda u gargaarayso jarmalka maxaa yeelay Yurub oo dhan waxa ka jirta baahi weyn oo shidaalkii oo nusqaamaya ilaan ruushkana kama qadanayno oo marabno kada waa tii dhaheen wadamada ka qaadanayeen ee way u badnaayeen carabta tusaalahaana wixii ku dhacay markii Yurub waa laga xiray xataa wadamada carabta xadba saameysay laakiin markii Yurub la soo marin lahaa waa xiraya marka wadanka jarmalka waa wadanka ugu badan warshado markay noqoto wax soo saar Yurub aad ayuu macnaha arintaasi khatar ugu yahay marka waxa dhacday waa maxay in shidaalka diyaaradihiisa halis ay ku jiraan kuwiisa un maahan guud ahaan diyaaradaha dhan caalamka waxyaalaha shidaal ku saabsan iyo kiimikooyin macnaha iyo adiga waxyaalaha qaar kooda ee shidaal un adiga ku saabsan magacaas guud shidaal soo galaya ayaa nusqaami doona ayamaha soo socda isbuucyada soo socda bilaha soo socda waa balaweyn doonaaba oo yani waxa laga yaabaa مثلا ماشي لما ديارad mise 10 diyaarad iska dhig ka bixi jirtay in hal diyaarad ka baxdo maalintii oo kale hasha diyaaradna waxa laga baqayaa naftirkeeda inay maalin dhaaf noqon doonto ama saas oo kale marka Israa'iil waxay tiri annaga idin hayna wax wanaagsan oo ah annaga idin siinayna annaga idin ku caawinayna arintaasi waxa lagu tilmaamay hadii ay jarmalka aqbalaan Israa'iil ay samayso rakaata kow inay noqon doonto jarmalka hadeertan ba rafaad ku jira Israa'iil markay dhinaca noqoto in dhibaato kale uu lugiisa ku raadsanayo taan halkaas naga tageynaa dhinaca kale Trump waxa la qorayaa weliba si aanka ciwaankooda waxa weeyaan if words won wars hadii erayada lagu guuleysto inuu la hadlo guush hadii hadal un ay tahay Donald Trump hadaladiisa Iran mar hore ayuu ka raayay macnaha sida hadalka hadii hadal lagu guuleysanayo marka laakiin waxay dhaheen laakiin madaxweynaha ilaa hadirtaan ma heli karo wado toos ah oo uga bax dagaalkan wuxuuna garan laayahay wado iska dhaafe wixii xataa ku hadli lahayo garan laayahay
taasoo keenaysa inuu wareersan yahay oo ku jiro oo maanta oo dhan marba inta isdirba isku dhufanaayo ka soo leexanayo dirba isku dhufanaayo ka soo yani istiraatiijiyad ana la galay dagaalkan waa lagu jira maanta caalamkii dhan hadda waxaan rafaada ku dhacayaan asagayna wixii uu bilaabay si uga baxa malahan saasoo kale gudubna ayadana Spain is holding talks with Turkey ay wada hadal kula jirtaa regarding the Khan fighter jet ayadoo iibsan rabta ama ujeedada hadalkoodana uu yahay Khan diyaaradaha la dhaho ee waliba unmanned waxa weeyaan diyaaradaha droonka ah cid ibn aadan ama wado ayaga iswada waliba Spain Turkey waxay u soo bandhigaysaa ay leedahay annaga ziyaado technology ku sii dari doona marka dealka noocaas oo kale ah ayay Spain Turkey la furtay waxa marka cajiib ah waxa Spain arintan ay rabtaa inay ku bedelato F-35ka ogowna Khan diyaaradahan la dhaho ee Turkiyada ay sameeyeen waxa isdahaysa markaad korka ka aragto waa F-35 oo inta taagan camal yani koobi camal u sameeyeen Turkiyada laakiin mana ahan kulay Mareykanka in laga soo wada qaadanayo ii sheegay wixii qalab ahaa iyo yani laga quusanayo hatta waa diyaabaysa markaad fiiriso siyaasadda caalamka meesha ku bishoon doonto oo ay u socoto ugu dambeyn aan isdul taagno suuqa caalamka iyo manipulationka iyo waxyaalaha khiyaanada iyo sida lacagaha loo sameeyo gaar ahaan dagaalkan Iran wixii dhacay xalay inay heedan filayaa hadaan khaldaneen ama habeen hore waxaan ka hadlanay wiilasha Trump waliba mid kamid ah in lagu shakisan yahay in aabihiisa akhbaaraadka markuu ka helo oo suuq intuu soo galo dahab haday noqoto shidaal noqoto wixii hoos u dhici raba ama kor aadi raba ilan aabihiisa inta badan yacnihi hadaladiisa ku xireen Soomaha marka uu soo ogaado inuu inta suuq yimaado inta Soomaaliyan galiyo marka aabihiisa hadlo wixii ima cirkay ku dhageen inta Soomaaliyan ka sameynaya waa ima dhulkay ku dhaceen markaas inta Soomaaliyan ka sameynaya xaleeto qof wuxuu sameeyay marka 125 milyan in 40 minutes 40 daqiiqo gudahooda qofkaas ilaa hadda ma yaqaan laakiin waxa la soo qaatay sawirka wiilka Trump ay la soo qaatay sida ahaataba Tucker Carlson ayaa hadlay hadalkiisa intaanan gaarin ayaa waxa Mareykanka naftirkooda waxay leeyihiin diblomaasiyiinta Mareykanka ah iyo dadka jagooyinka haya waxa looga digayaa in wax ku saabsan suuqyada ay sharad ku galaan ama ay ganacsiyo waaweyn iyo macnaha faa'iido weyn ay sameeyaan haddii sameeyaan faa'iidooyin waaweyn ama la ogaado inay sharad ku galeen meesha ay wax u socdaan saar ahaan inay noqon doonto khiyaano maxay leeyahay siraha gudaha ka og yihiin inay banaanka u soo baxaan lama ogola sirahaasi cidii ogeed marka inay suuqa uga faa'iideysato ay ka taajirto waxay ku tilmaameen arintaasi inay tahay cadaalad daro waxay ku tilmaameen inay tahay khiyaano tayib Tucker Carlson wuxuu yiri marka wuxuu leeyahay horay arintan aan ogeyn laakiin in hadeertan ay noqoto wax iska caadi ah oo lacag sameynba ay tahay waxaan oo dhan ay hadda noo soo baxaysa wuxuu leeyahay the whole system is rigged system ko dhan oo dhaqaalaha maxaan ku dhahay ii sheegay suuqyadan yani sarifka haday noqoto forex-ka haday noqoto forex-kii Soomaalida kama hadlayno sarifka rasmi ah ka hadlaynaa haday noqoto shidaalka haday noqoto investments-ka waxyaalo badan oo kamid ah waa lagu baashaalaya habeenkii la soo tashanaya dad badan la khasaarinaya waa laga taajiraya waa laga qaadanaya lacagtooda waa la soo tashanaya subaxii habeenkii markuu imaado dad badan taajiraya yani saasoo kale suuq oo dhan ba rag kooban oo dawladda Mareykanka ku jira ayaa gacanta ku hay asana saas u aaminsan yahay wuxuu leeyahay the whole system is rigged system ko dhan oo dhamaatay waana dabcan hadda hore waatii arinta noocaas oo kale la keenay cadeemo ama shakiyo badan oo cadeemahooda taqriiban muujinaya inay sax arinta ay tahay inta